waa tahay dhageystayaal waxaan haatan guda galaynaa faaladii aan u magac bixinay bar ama baro ee had iyo goor aan uga hadlaynay faaladaasi xasuus caare bar ama baro wadciga suugaanta dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka ay u soo tabiyeen nolosha bani aadamka iyo xaaladda guud ee siyaasadda dunida. haddaba wax aad iyo aad la yaab u leh markii aad maqashid ama tacliin ahaan aad barato in suugaanta dunida ay ka soo warbixiso xaaladda nolosha bulshada mid aakhiro iyo mid adduunba. waana wax uguba in bulshada Soomaaliyeed ay maqasho in hadal ku yimaada hab suugaaneed ay u qaataan in ay tacliin ku jirto, khaasatan tacliin ka waramaysa warbixino ku aadan nolosha dunida iyo midda aakhiro. mase ahan mid uguba markii aad eegto nolosha reer galbeedka iyo sida looga nool yahay maba looga arko siyaasadda suugaanta dhinaca wadamada reer galbeedka, oo waxa ay had iyo goor aad u tafaftiraan hab suugaaneedkooda oo ay ka eegaan hadba warbixinta ku jirta oo ay abwaanada qoraya mirahaasi ay kaga hadlayaan xaaladda nololeedka gayigooda ama dhankooda. waxaase la yaab leh in wadamada leh awoodda veto power-ka ee golaha ammaanku ay ayagu si qaas ah ugu xiran yihiin judge-kooda ama kaniisadahooda si ay aad ugu sii tafaftiraan xaaladda siyaasadeed iyo midda warbixineed ee ku timaada suugaanta dunida. waxaa la yaab leh abwaano Soomaaliyeed oo fara badan iyo fanaaniin Soomaaliyeed oo noloshoodu ay aad u liidato in miraha ay ku hadaaqaan ama qoraan oo dadkoodu ay ku heesaawaan ay lacag fara badan iyo qiimo fara badan ugu fadhido bulshada reer galbeedka, qaasatan wadamada reer galbeedka siyaasiyiintooda oo ay iyo bahdooda qora ama diiwaangeliya umuuraha diinka, iyagoo aad uga faa'iideysta murtida suugaanta wadamada soo koraysa. haddaba haweeneyda la yiraahdo Waris oo u dhaxda aniga ayaa aad ii barta hab suugaaneedkan sida dunidu ay uga faa'iideysato from cover to color. waxay u yaqaanaan wadamada Ingiriiska, Chinaha, Faransiiska, Mareykanka iyo wadamo kale oo kamid ah kuwa veto power-ka sida wadanka Russia oo isagu ilaa wadamada Koonfur Afrika gay ahaan dhaca suugaantooda aad uga googooba ama uga raraadsha umuuro ku saabsan nolol hore oo ay ka hadleen sida mid u eg ama loo qaadan karo gay nololeedka ka baxsan nolosha dunida ee aakhiro. haddaba aakhiro waa gay nololeed ama hayaan nololeed ka baxsan nolosha dunida, waana ay adag tahay in had iyo goor la helo xaaladda nololeed ee ka jirta gayigaasi aakhira. hase ahaatee abwaanada Soomaalida ayaa aad uga dooday halka ay aakhira naga jirto. waxaadse moodaa doodoodaasi iyo miraha ay ka wada qoreen umuurtaasi inaysan iyagu ku nacfiin amaba anfac ka helin iyagoo jooga dunida, oo ay ku nacfinayaan abwaano iyo siyaasiyiin reer galbeedahi. si walbay ahaataba inta aanu ku guda jirno tacliin baradka bar ama baro ee faaladan xasuus xaar, waxaan had iyo goor kaga hadli doonaa sidii aan ummadda Soomaaliyeed u dareensiin lahayn in bulshada caalamku ay ku jirto tartan suugaaneed laga goobayo cilmiyo nololeed oo ku saabsan habka loogu nool yahay dunida iyo aakhiro, iyo weliba xiriirka ka dhaxan kara aakhiriga adduunka oo ah run ahaantii mid Waris aan ka qarsoonayn amaba aan aniga iga qarsoonayn oo reer aakhiraad badan aan kula kulmay dunida guudkeeda iyaga oo soo haajiray isla mar ahaantaana loo fasaxay inay soo gaaraan dunida. si walbay ahaataba waa
waqti ay maskaxda bini aadamku qaangaar noqotay haatan inay soo gaarto wariyaha koobaad ee darajadaasi alla siiyey inaan noqdo oo aan arrintaasi ka hadlo una fasiro ummadda Soomaaliyeed iyo waliba guud ahaan ummadda caalamka oo eegan doonta buug heerkiisii labaad oo aan qoraal ku wado mar dhowna gaari doona dunida inteeda kale falladan xasuusaxaar tacliin baradka bar ama baro bishan October dabayaaqadeeda waa iga intaa waxaase xusuus mudan in bisha soo socota bilowgeeda oo ku beegan maalinta berita aan gabi ahaanba falladan qaybteeda kale ku soo qaadan doono miro la yaab leh oo ay qoreen abwaano Soomaaliyeed bulshada reer galbeedka aad ay ula dhacaan isla mar ahaantaana kamida suugaanta ay aad u dhigeen goobahooda cibaadada ama churchka ay u yaqaanaan oo ay u fasireen luuqadahooda waxaana kamida China iyo Ingiriiska oo runtii aad uga kalumaysta suugaanta Afrika